Allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan Ilaahayna siiyey isaga ku abaale Ilaahayna siiyey isaga ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كلنتي وعن مركلة برنامجكينا عيدة. maanta barnaamijka ciida waxaanu ku qadaa dhigi doonaa insha Allah taala qaybta salaamaha waa qaybtii koobaad ee maanta oo jimcaha iyo magaalada Khurduum Africa TV4. barnaamijka waxaa marti igu ah laba aqoon-yahan oo Soomaaliyeed waxayna kala yihiin Cabdullaahi Jambiir Saahid iyo Xasan Maxamuud Diri. waa laba aqoon-yahan Soomaaliyeed daraasad culiya wadankan ka dhigta ama tacliinta sare ku soo wada barnaamijka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijka aad caawa nagu marti qaadeen TV-ga African 4 African TV4 aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan howlwadeennada barnaamijka TV-ga African ayaan u mahadnaqayaa adigoo muqadim barnaamijka ah Cabdicasiis oo si gaar ah noogu casuumay caawa oo fursadana siiyayna aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa. barnaamijkan oo caawa oo Ciidul Adha ah oo muslimiinta meel wada joogaan waan salaamayaa. waxaan leeyahay ciideeda ilaahay dhammaanteen nabad inuu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo. waanaad mahadsantahay Cabdicasiis. waa mahadsantahay Cabdullaahi Jambiir Saahid. sidoo kale dhankayga bidix waxaa fadhiya Xasan Diriye ama Xasan Maxamuud Diriye ku soo dhawaad mar kale barnaamijka ciida. aad iyo aad mahadsantahay Cabdicasiis Nuur Caabi waan ku dhawahay walaal. waxaan jeclahay ugu horreyn inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed marka labaadna aan uga mahad celiyo TV Africa Channel 4 fursadda inoo siiyaan inaan kala qayb qaadano damaashaadka ciida. waxaan salaamayaa adigu muqadimka barnaamijka Cabdicasiis Nuur Caabi maamulka telefishinka iyo dhammaan howlwadeennada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan kiisa xiga ku gaar bashooshi baraar insha Allah. waa mahadsantihiin Cabdullaahi iyo walaalkay Xasan. waxaad tihiin laba aqoon-yahan oo Soomaaliyeed. maanta waxaa marti ku tihiin barnaamijka ciid wanaagsan ama dhambaalaha dad badan waxaan rajaynaynaa inay soo gaarsiiyaan oo Soomaaliyeed salaamo si ay u salaamaan dadkooda. haddaba saa ogsoon tihiin waxaa ogsoon tihiin haddaba in maanta ay jirto maalinkii koobaad ee ciida. waa maalin khamiis ah runtii carafa aan soo soonnay shalay oo carafa ahayd iyo maanta oo ciid ah. saa ogsoon tihiin aqoon-yahan Cabdullaahi iyo aqoon-yahan Xasan. maanta waxaan leenahay qof kasta meel kastoo joogaba waxaan leenahay ciid wanaagsan. waxaan ku ciidnay magaalada Khurduum xarunta TV-ga waxay tahay saa ogsoon tihiin magaalada Khurduum. dadka Soomaaliyeedna waxaan kula ciidnay maanta magaalada Khurduum. bal marka koobaad haddii aan ku soo noqdo Cabdullaahi ka waran magaalada Khurduum see maanta looga ciiday gaar ahaan area-da adiga ku ciiday xaggee salaada ku soo tukatay maanta sidee muslimiintu u ciideen areas ku soo dhaw. Cabdicasiis waad mahadsan tahay. magaalada Khurduum waxaan ka deganahay anigu qaybta suuq al-Carabi la yiraahdo. si waxa loogu ciiday aad u qurux badan baa loogu ciiday markii salaada subax ay ahayd dhammaan in walaalada Khurduum ay ka duwan tahay wadankeena ay ka duwan tahay dadka Suudaan la joogo. maxay kaga duwan tahay? way ka duwan tahay oo caadooyinka aslan ummada waxa kala duwan oo macnaha ay farqi ku kala leeyihiin. kolba waxa weeyaan caadooyinka iyo taqaariidda ay ummadu leedahay ay kala duwan yihiin. waxa jira Khurduum macnaha marka lagu ciidayo kale amba Suudaan oo kale waxay kaga duwan yihiin wadankeena dhammaan dadku waxay u baxaan gobolada bay u baxaan maalmaha ciida. ciidul fidriga ha noqoto ciidul adha ha noqoto dadku dhammaan waxay u baxaan gobolada bidkooda u baxaan. sidaas waxa weeyaan caado ay u leeyihiin ay kaga duwan yihiin ummadaha kale. inagu waxaan caado leenahay madankan waxay ku ciidaan inta badan waxay ku ciidaan magaalooyinka soo galnaa. iyagu bedel waxay u leeyihiin inay qabtaan gobolada ay qabtaan oo ay qabtaan. markaas Khurduum dadka Soomaaliyeed yaraan dadka magaalooyinka jooga inay ka bixin oo miyiga ama aadan halkooda isku ciidaan. marka dadka aslan joogay maanta Khurduum jooga ay aan ka dhex galo si daawadayaasha u fahmaan maxay gobolada ka doonayaan dadku markay caasimada ka tagayaan. gobolada waxay ka doonayaan dadku macnahan aslan ciida weyni ciidan waxa la yiraahdaa Ciidul Adha baa la yiraahdaa ciida weyna waa la yiraahdaa Ciidul Arafana waa la yiraahdaa. marka dadku aslan wax xabaal xoolaha baa la qalanaya waxa weeyaan markii naxriga la sameeyay. sidaa daraadeed dadku aslan kostiga amba waxa weeyaan dhaqaalaha ku baxaya adxiga oo kale waxay jecel yihiin inay goboladooda waa dad inta badan iska xoolo dhaqataa weeyaan. inay ummadooda tagaan ayay jecel yihiin la soo ciidaan bay jecel yihiin oo xoolaha bartanka iibsan lahaayeen xaga gobolada
ay kula qaataan sidoo kale waxa weeyaan waxa leedahay inay ehelkooda jooga xaggaas u tagaan ay la soo ciidaan sidoo kale waxa weeyaan ayaamaha kale waxa inta badan ay leedahay ciidoo kale markay ku baxaan ay u baxaan gobolada waxay sameeyaan waxay inaga duwan yihiin shaygan macnaan guurka kale xilligan oo kale aslan guurkood aad buu qaali u yahay Suudaan kale guurku aad buu qaali u yahay marka hoos buu u dhigaa macnaan xilligan oo kale waxa la sameeyaa discount ama takhfiid baa la sameeyaa kaas ayaa keenta badan waa aslan waa farxadan ciida iyo maalintan dee wanaagsan la joogan khayraad ka soo baxnay sida daraadeed ayaa hoos loo dhigaa guurka kale marka inagu ma inta badan ciidaha inuu isguursano laakiin dadka inta badan aad buu guurku u dhacaa maalmaha ciida sida waxa arkaysaa intaas kun aroos oo dhacaya baad arkaysaa sida daraadeed Cabdallah ku khadqa ma san tahay dhan kale waxaan u galaa Xasan barnaamijka ku soo dhawdahay Virginia Xasan maanta waxa ku ciiday magaalada Khurdum dhamaanteen waxa ku ciiday magaalada Khurdum marka Xasan oo bal ka waran maanta maxay kaga duwaneed maalmihii hore loo soo ciiday Cabdilcasiis oo horta Suudaan ayadoo ciidaha farq weyn uga dhaxeeyo inta badan intaan anagu soo joogay min 2009 ilaa iminka dhaqankooda sida walaalkay ka sheekeeyay Jambiir waa dad magaalooyinka waaweyn ama mudug waaweyn ka taga gobolada iyo tuulooyinka ay ku dhasheen asalkooda marka waxaad moodaysaa mararka qaar markaad adigu meel kale isku dadka Soomaaliya ka yimid oo kale inagoo kale markaad ku cusub tahay Suudaan ama Khartoum kale wax kula noqonaysaa wax qariiba ilaana waxaad arkaysaa magaalada dhan kaamil ah yani qofna joogin oo banaan oo dukaamadu xiran yihiin oo suuqyadu xiran yihiin oo waxaad iibsato mararka qaar ma arkaysid hadda markii loo eego waqtigan imaanay Suudaan 2009 iyo hadda farqi baa u dhaxeeya waxaad moodaa inay dib u soo laabanayaan oo dadka bixi jiray cadadkooda soo yaraanayaan in yar waad arkayso dukaamaha qaar iyo suuqyada qaar furan iminka marka loo muqaaraneeyo Soomaaliya iyo waxa Khartoum ka jira farxad weyn ma dareemaysid qofku inuu salaada soo tukado asxaabtiisa wadanka wada joogan ardayda wada yihiin salaamo mooyee macno weyn kale ma sameynayso laana hatta farxadda magaalada kama dareemaysid caruur ma joogto baabuur badan ma leh zaxmo ma laha qof walba guri inta joogtana guriga ku jiraan inta badan oo iska dad xirxiran marka anu gobol baan wax ku bari jiray markii hore magaalo coastal yiraahdo dhinaca koonfurta ku taala xilliyada hore 2009 ilaa 10 ilaa 13 laga soo gaariyay dadka Khartoum ka taga ama gobolada waaweyn xaq iimaan jireen oo waxa dareemaysaa noocan ma inuu ciid jirto gobolada ka dareemaysaa laakiin inta hadda Khartoum joogay ma arkaysid farxa intaas maartay u si balaaran waa mahadsantahay Xasan waxa sheegtay in magaalada cilad tahay magaalada maadaama ciladaas ay jirto adinku ardayaatiin dhamaantan ardayaan nahay arday badan oo Soomaaliya ku nool magaalada Khartoum sida la sheego marka waxa iga warantaa ardadaas cadadka inta la طبعا waxaan rajeynaa de ardaynimo u joogan xaasas ma leh si gaar ah su'aalan ku weydiiyo maxaas baa leedahay maya wali kuma dhiirin in xasiish okay ma xasanta Xasan wuxuu sheegay saaxiibka Xasan in magaalada cilla ay tahay oo marka cilla ay tahay waxa laga dareemaa dabcan meheradu inay safrnayn dukaamada furnayn meelaha wax lagu cunaa inay furnayn maxaa sameeyeen Cabdullaahi oo adigu kale ay marka adigu dabcan waxa suuragal ah familka inay ku daawanay xataa daato waarno isna weyn meel laga wada baxay oo dadkii wadanka iska lahaayay asaan wadanka u deganaa markay meel kala qabtaan asal waxa soo baxsanaya horta inta ajaanibta soo baxsata dadka ajaanibta wadamada de kala duwan ee wadanka jooga Pakistan marka dad suuqa dhex martay saagan waan kacay markii aan kacay waxaan doonay inaan wax soo iibsado suuqii baan dhex galay asla markaan waxoogaa socotaba cid ka hor imanaysa wad garanaysaa amba waa nin Ethiopian weeyaan amba waa Eritrean amba waa Pakistani dad aslan dadkii wada ka baxeen macnaha wadanka ka baxay badalkooda ka baxeen dadka wax ka hor imanaya dad macnaha wadankan aan dadkii kale magarasa ajaanibta ka hor imanaya waxaad waayaysaa meel wax ka iibsato dukaamada wada xidhan yihiin hodhalada badankooda way xidhan ama maqaayadu way xidhan yihiin macnaha wax weyn meelaha wax ka qaadan lahayd badankooda way baday macnaha way xidhan yihiin sida daraadeed aslan inta badan dhalinyaradu waxay sameeysaa Suudaan degan rag aan cid u joogin aan family kale u joogin in ka hor intayna magarad dadka bixin in wax la soo iibsado aduu ma sida Xasan kala tahay bilaxaas aslan waxa weeyaan wali ma aragma yeelan ardayda ka jooga ka mid ahay marka waxaan qorsheyn wax soo iibsato laba maalmood ka hor ama maalin ka hor inaad soo iibsato kadib dadana de wadal yaradaas ay wax samaystaan iyagoo ilaa waxa laga yaabaa 3 cisho laga yaabaa suuq xidhnaado laga yaabaa amba 4 xidhnaado laga yaabaa waxa ugu darantahay markan tan kale ugu darantahay haddii ku soo hagaagto khamiis asal marka waa jimcayo sabti ma shaqeynay marka waxa ay noqonaysaa inuu bilaabado yawm al-ahad inuu kan iidiyo galaan ka bilaabo magaalada ha iyo ma bilaabmayso ilaa laga yaabaa salaasada arbacada wixii ka dambeeyay magaalada furanto usbuuca dambe laga yaabay magaalada caado shaqeyso inta ka horeyso dhan ma aslan magaaladu waa iska xiran tahay meel wax kiibsta aad bay yaraanaysaa laakiin markaan soo baxay hodheel baan marka inta deeday kadib baan helay markaan si socday madcam wax ka cuno hodheel wax ka cuno ama makhaayad dad badan isku hodheel isu yaqaan koonfurta looga yaqaano kala makhaayad
markaan baxay ma soo socday kolba nin baa i weydiiyey war meel wax laga cunay ma aad aragto ma jirtaa halkaa mar barta wax ku wax laga helayaa waa gartay maana masaa magaalada soo xidhan tahay marka maanta aslan ciidda farxadeeda waxa weeyaan aslan waa dee shacaar islaami weeye waad farxaysaa waa gartay laakiin haddana waxa farxadaas oo dhan ma wada dareemaysa dadku wada dareemayaan saxiix waddanka waddanka jooga farxadday dareemayaan Waa adiga aslan kaa maqan tahay Aywa. waxaa kaaga maqan tahay naftaada wax cunto laadayba Naftaada wax cunto laadayba. hawa aad wax cunto laadayba bas iska badaa inaad farxadabe Okay. waa maanta aslan ciidu adoroso waad marka soo dareemaysaa ajaanib tahay haddii aan ka dhex gala Cabdullaahi adigo raaliye marka saaka markaa soo baxday magaalada xirnaa aragtay waa kuwa bariisatay hore waxba kuma diyaarsanaysa halkaa ka fahmay marka maxaa dareentay shakhsi ahaan maxaa dareentay markaas kaleeto aslan horta maanta saa sheegtana magaalada waa sii xirnaanay isbuuc dhadhow aslan horta waxaan dareemay dee inaan shayga macnaha waddanka inta hore ma dareemaysa Suudaan markaad joogto dad aad u wanaagsan weeyaan oo waa gartay dad waxa weyn tacaamulka si kula tacaamulayaan inala midaba waxa weyn soo dhaweyn wanaagsan waxa weyn dadka waxa weyn aan mid hore dareemay laakiin maalinta ay timaado iidu ee farxaddu ay timaado ay hor dareemaysaa ajnabi ka tahay waddankan waa gartay maalinta saacadu dareemaysaa marka waa weyn aslan dhalinyaro joogta dee asxaabtaadaba joogta dad bajaar baa leeyihiin meelo furan baad helaysaa waa gartay waxay kugu qaadanaysaa inaad socodkii aanad hore u qaadan jirin inaad meel fog tagto meesha wax kusoo ibsatay noqonaysaa waa gartay markaasna horta wax lama waayo laakiin waxaa jira ciidi fara badan baa jira ciidi waxay nagu keentaa ciidi bay nagu keentaa waa mahadsantahay daawadayaasheena si toosa waxay noogala soo xiriiri karaan nambarada shaashada kasoo muuqda inta barnaamijkan oo socda waxaan guda jirnaa barnaamijka salaamaha ee galabta Africa TV4 waa mahadsantihiin xasan markale kusoo dhawa barnaamijkeena wuxuu sheegay walaalkeen Cabdulla ama adiga saa sheegtay war u sheegtaba dadka ay magaalada ka tagaan goboladana ay aadaan haddaba waxaa halkaas ka fahmaynaa in dadkaasi ay dadkooda soo salaamaan qaraabo salaan iyo adxiyada ay la soconaan ma la dhihi karaa xagga Soomaalidu kaga fiican yihiin maadaama dadka aan ka dhaxeeyo in dadkooda qaraabada ay soo salaamayaan oo magaalada ay ka baxayaan familiga kale loo tagayo qaraabadii muddada laga soo maqnaa kadibna halkaas waqti lagu wada qaadanayo halkaas dhinaca kale marka la eego Soomaalida ma sameeyda barnaamijkaas Cabdicasiis waa mahadsan tahay horta way jiraan wadamada kala duwan iyo shucuubta kala duwan dhaqamada ku kala duwan yihiin bixidda ay caasimadaha ka baxayaan oo tuulooyinka aadayaan kaliya ma keenayso inay Soomaalida kaga wanaagsan yihiin Soomaalidu sidaas la eego waxay sameeyaan dadka gobolada jooga ama magaalooyinka yaryar baa caasimadaha yimaada oo magaalada ka dareemaysaa maalmaha ciidda magaaladu way buuxdaay oo jaamac caruurta iyo dadka iyo waxa is dhex socdaan marka ayagu way dhaqan ay leeyihiin in mataqaana qofku meeshuu ku dhashay ama aabihii ka soo jeedo inuu inta u baxo oo magaalo iska tuulooyin deean xataa magaalo dhismo lahayn oo cashaan kali ah inuu qofku ku soo ciido xagga ehelkiisa kula soo qaato inta ka dhiman way sameeyaan marka waa mas'alad ku xiran dhaqaalaha oo reerku leeyahana bixitaankaas oo waxa jira reer qaar aan qofka iskama baxo oo waxa laga yaabaa qof hadda مثلا dadka ka soo jeeda Kurdufaan oo kale aad u fogtay oo xuduudda waddanka ku taal qofka marka inuu baxo ku adkaanaysa dhaqaalaha fiican lahayn marka anigu ma qabo ka Soomaali ahaan waxa ila qurxan nidaamkan yaraanteeda soo bartay oo ku soo ciidi jiray oo dadka dhan baan maartay kaaba ila wanaagsan oo caasimadaha la soo buux dhaafinayo laan waxa laga yaabaa reer kaamilo oo ka kooban intaqaana ilaa 100 qof oo kale qaraabadii saddex qoys oo baadiyaha jirta awgood in loo baxo way yara adag tahay saddex in la keenay aniga ila qurxan marka ayagu sanad walba tagaan mugtay marka waxay hadii mid la sameeyo in la isbedelo oo sanadna qoladan baadiyaha tagto sanadna mar ayaga la keeno laakiin waxay dhammaan waxay noqotay anaga ka Soomaaliya way waxtaa waxay ka fikirayaan xoolii magaalada miiga ay jiraan oo dadkii miiga xoolii ay la joogaan kadibna xaggaas udxiyada lagu soo gudanayo la soo marka kulli khalad ma jiro laakiin qof walba dhaqanku ku soo koray la wanaagsan marka waxa weeyaan anigu ka Soomaaliya ajnabi sidoo jambar sheegaba anaga waxay nagu tahay maalmo adag maalmaha ciidu jirto laakiin Suudaan kaliya ma aha qof kasta qurbaha joogada waraysto wuxuu ku leeyahay Soomaaliya markii wanaagsan lagu ciido ma jirto qof kasta wuxuu dareemayaa inuu kaligii meel qurbaha joogo hadii xataa asxaab iyo wuxuu u arko maalmo buu arkaa ayaga laakiin waxa fiican qofku inuu hooyadii aabihii qaraabadii asxaabtii kale oo muddo kala raageen inuu la ciido nacam waa maasanta Ustaad Xasan Dr. Xasan haddaba Ustaad Jambiir ma jira qof si gaar ah u jeceshahay ama si guud ba dadka guud ahaan qaraabada salaami ugu dambeyn waxaan suuragal inaan ku siino fursad kale oo si gaar ah dadka aad jeceshahay u salaantay hadii si guud ah jeceshahay u salaantay maadaama barnaamijkeena uu yahay barnaamijka salaamaha wada qofku qolay wuxuu ku jecel yahay oo dee macnaha markay noqoto yaad ku jeceshahay adduunka waartaagu noqonaya oo hooyada iyo aabaha laga sii eedooyinka adeeradaas magacyadooda ma sheegaysid marka hadii aan magaranaysa aan ka bilaabo waxaan bartan ka salaamayaa hooyaday Raxma Cabdi Maxamuud Gude aabahay Jambiir Said Maxamed waxaan ka salaamayaa kale walaalahay dhamaantood Shukri Zainab Yaasiin Cabdirasaaq Najiib Nimco dhamaantood waxaan ka salaamayaa waxaan ka salaamayaa eedooyinkayga aad igu qaaliga ah sidii Caasha Said baan salaamayaa Saacid Said Sahra adeerkay Cabdi
waxaan salaamaya kale oo martan salaan uga gudbinaya adeeradayo kale Mustafa Mustafa Oogay Ismaaciil Aadan waxaan kaloo salaamayaa wafdi ku farbadiyay oo macnaha qaraabadu farabadan si gudaha u islaamisa marka si gudaha ma salaamaya asxaabtayda xagga friendska dan gudbo friendska si gaar u salaamaya yaan aad salaamaya waxaan salaamayaa Ali Kahin baan salaamaya Xasan baan salaamaya Cabdullaahi baan salaamaya maalintii muuqayga magacayga garanaysa ma gaar u salaamisa dadkii u salaamisa intii garanaysa magacayga muuqayga ba inta ma salaamisa macnaha waan salaamaya reer Khartoum ha noqoto inta waddanka joogta ha noqoto inta adduunka inta iga daawanaysa ha noqoto macnaha waan salaamaya dhamaanta magacyada ma soo ururin karo marka salaamaya okay marka fursad kale si doona Cabdullaahi waa maasan tahay sidoo kale Xasan fursad siinayna si guud yaa salaamisa qaraabadii familiga iyo asxaabtii horta Cabdilcasiis marka lagu yiraahdo yaad salaamaysaa nacam markaad magaca sheegto dad baad si gooni u soo dhaweysatay oo hadhow ma taqaanaa dad kale marka waxa soo galay qolada waa ilaawaysaa ilaa markaad hadlayso dadka magacyadu sheegayso qof dadka kugu dhaw sadfa ku ilaawaysaa saxiix waa gartay marka waxaan rajaynayaa dadkan ka tago inaysan iga xumaan laakiin qofkan ugu hormarinayo markasta waxa weeye hooyaday macaan asli nuuriye Samadoor ma sha Allah mataban bay joogtaa mataban garore ma sha Allah aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan familkayga reer Diiriyo dhan haddaan tiriyo tiradii ka bateen ma shakhsi uma sheegi karo laakiin waxaan jecelahay inaan magacyada ka xuso adeeraday inta nool adeer Maxamed Diiriyo oo iminka Kuwait jooga ma sha Allah adeerka Ciise Diiriyo mataban jooga laftigiisana adeerka Xirsi Diiriyo eeda Timiro eeda Dahawe eeda Saaqo oo inta hadda ma taqaanaa nool waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay ilma adeeraday asxaabtayda ma taqaanaa si wada jira dhammaan asxaabtan Suudaan ku bartay intaan hor u garanayba aniga salaamisa si saaxiibka u salaam reer Khurdum masalada ugu darbo waa taada qof dad la joogto qolada sheegto qolada ka tagto xago yar aad kaanaysa waa gartay marka laakiin haddaan qof iyo laba iska sheego inta kale ayaga raali naqanaya saaxiibka Galad Nuur Xirey waxaan salaamayaa saaxiibka Aadantiin Cabdi Naasir waxaan wali Shiinile saaxiibka Usaama way badan yihiin asxaabtu waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama ardada Soomaaliyeed oo Suudaan wax ku baratay si guud baan u salaamayaa waa gartay okay waa maasantiin labadiinaba waxaan rajaynaynaa dhammaan familiga guud ahaan inay daawanayaan ama inta kale ay ka daawan doonaan barteena internetka aan ku leenahay africa.tv.sd waxaan rajaynaynaa Cabdullaahi iyo Xasan in salaamahaas dhammaan dadkaas gaareen inta kadib waxaan joognaa maanta Africa TV xaruntiisa Khurdum studiyiisa si toos ah waxaan rajaynaynaa daawadayaasheena inay noola soo xiriiri doonaan si ay familigooda ula xiriiraan oo salaamaha u gaarsiiyaan inta kadib Cabdullaahi oo dhankayga midig xiga markale ku soo dhawaad Cabdullaahi barnaamijkeena live-ka waa salaamaha saa ogsoon tahay Cabdullaahi waxaan ku jirnaa ciidii maalinkeedii koobaad insha Allah taala kam ciidood ay imse ciidood ku salaantay ku soo aad ku ciiday magaalada Khurdum dad badan waxay ka xishoodaan in marka la weydiiyo misaad ku ciiday asla way kulli wayta joogtay inta joogtay tilmaam taas meel baad ku ciidi lahaydo hay meel ku ciidaba ha horta waxaan imid Suudaan waxaan imid 2009 hay bishii 11aad 36 baan imid 2009 bishii 11aad 36 baan imid waa gartay waxaan imid waxay ahayd ciideedii baa macnaheedu waxa way 6 sano dhaw joogtaa 6 sano ayay imka madaxa ka jartay baan maranaya waa gartay ciideedii 2009 ciideedii baan imid Suudaan waa gartay waxa markaa noqonaysa deen la inta soo ciidad baan ku ciiday horta laga soo bilaabay 2009 ciidii adxal laga soo bilaabo in ka badan ciidood shan bishan tan ciidan ku jirno ha inta ku wada ciiday waa 12 ciidoodii in ka badan taqriiban inta noqonaysa marka Cabdullaahi intaas ciidan ku ciiday maxaa kula yaab badnaa ciidaas ku ciiday ciid kula yaab badneed oo si gaar ah qalbigaaga ugu reebtay xusuus ma jirtaa wala horta ciiduhu inta badan Suudaan maadaama isku ka mid bay noqonayaan ha inta Suudaan joogto ciiduhu soo marayaan waxa laga yaabaa in wax fara badan oo ma garanaysaa ay kala duwan in kugu yeelan baa laga yaabaa ay isku mid noqdaan way maadaama mar walba ay tahay qofka aad ku noqonayso qariib ku noqonayso mar walba laga baxay meesha cidla ku noqonayso waxay tii hore tan dambe kaga duwanaataa horta aad buu yaraanaysaa imka damidan ku yiraahdo taasa ma garanaysaa igu ciidaas shayga iga duwanay iga bedelneed ayo أصلاً دمن حويان ما هذا ما تنامي كراب intaas isku wada midun bay ahaayeen laakiin hadii dhinaca kale waa laga heli karaa taas waxay kaga duwan waa laga karaa mid walba duruufteeda gaar ay leedahay laakiin shay boonti oo weyn oo dhacdo iidas waxa kaga duwaneed macnahan way yar tahay hadii marka la eego hadii aan ka dhex gal Cabdullaahi ciidaha qaarkood waxa soo galay inaadan adxiya aan sameeynin oo wax cun marka qaarkood waxa soo galay inaan hilib shan ciida mid ku kala duwaneen labadaas horta way xaga day waartan ku dhixdin laga eego
haddii laga xagga udaxdo kale laga eego haddii laga eego waa lagu farxminayaa haddii xagga joogo kale laga eego Ha. waa moogtay dalxiiska mid baxdo kale way kala duwanaanaysaa rixle yaraad u baxdo. haddaynu xasba dhinac ka eegno ha haddaynu eegno xagga aad xeedo kale haddaynu eegno ha way jirtay dee mar aanu qalanay dibi aanu qalanay amba Waa, lo la yidhaho waanu way jirtay marna oo qale way jireen waa gartay oo naloo sameeyey way jirtaa mar daan dalxiisyo wala soo baxno webiga kale u baxnay way jirtaan oo maraa guri iska joogtay way jirtaa ha tanoo kale way jirtaa inaan iska joogno dee aanu guriga iska dhex fadhino way jirtaa inta soo tukato kadib guriga iska joogtay haddana maraad meelood baxda weydood haddana kadib aad iska seexato waa laga yaabaa intay dad ummadii quslayaan ee farxayaan ee Waa waxa gartay. dhalinyaradii seeriyanayaan ee faraxsan yihiin waxaa laga yaabaa adigu inaad ku qaato laga yaabaa hurdo ku qaato laga yaabaa Waa iska gartay. seexato iska nasatay waayo wax joog wax kugu khasbaya duruufta kugu khasbaya iska seexato waa maasantahay haddaad u baxdo waxa weye meel shaahi laga cabo ma laha ma laha meel aad soo yara marmarto saaxiibdii la soo fadhiisto aad bay u yar tahay Ha. waayo marka waxay noqonaysaa inaad adiga hurdadu ismiceysataan bay noqonaysaa ilaa iyo inta lagugu soo noqonayo ummadda ku imanayso waa gartay waa maasantahay cabdullaahi jaambir xasan diiriye kusoo dhawa markaa barnaamijkeena ma jirtay horta xilligaa timid xasan magaalada Khartoum waxaan imid bishii koowaad 2009 waxaa isku dhowdiin jaambir yani Jambir ha xoogay muddo 9 bil taqriiban u dhaxaysan marinaya ha ma jirta marka waxaa suuragal sidoo kaleeto 12 ciidood ama 11 ciidood dheeraad inaad ku ciiday magaalada Khartoum ama magaalada gobolka aad joogtay oo Suudaan ma jirta ciidahaas farqi ma jiri u dhaxeeya oo ku kala duwanaa oo mid gaar xusuus qalbiga ku reebtay ma jirta horta Cabdilcasiis soo intooda badan waa iska ag dhow yihiin markii Suudaan laga hadlayo ha inkastoo labada ciidood oo midaan tan Ramadaanka iyo tan ay kala duwan yihiin tan Ramadaanka xoogay dadku ay joogaan magaalada ha laakiin aniga waxa igu yaa bandeed waxa jirtay sanadka 2012 ba waxa jirtay waa taqaan Suudaantu waxay sameeyaan wax la yiraahdo mudaharad bay sameeyaan jaamacadaha waxbay dalbanayaan jaamacadda fowday abuuraan waa jaamacadaha la xiro iska caano wax qof Suudaan jooga fahmaya waxa jirtay marka bariga waa jaamacadda la xiray jaamacad ila ajal musamma xiran wadanka ma waxaad ka qabanaysaa ma jeedka wati midna ayada ahayd ha ayada ahayd oo marka waxaan qabtay baladkii oo Muqdisho aan tagay anigu ku talagalaya marka waxa soo dhawaa Ramadaanka waxaan ku talagalay inaan xagga ku soomo kadibna xagga ku ciido waa gartay marka si fajaa yar saaxiibka ii soo wacayo Suudaan soo aan ka tagin ugu yiri marka barigaana marka la xiray jaamacadda imtixaan baa soo dhawaa waa gartay marka wuxuu yiri imtixaanka 2 subax kadib la galaya inaad dhaqso ku timaado Ramadaankiina 2 subax kadib imaanaya marka xaway kaas waxa igu ahayd yar xanuun ma doonin inaan imaado xusgaar igu leedo adoo ku talagalay inaad ehelkaaga la ciido in xaway laga soo yara khasbo waa culeys bay ahayd laakiin si guud Suudaan waa iska garanaysaa qofku markuu soo tukado inta badan waxa iska dhacdo waa laga sameeyaa masalada in qofku iska seexdo waa gartay wax la qabto ma jiraan laakiin sidoo farxadda waa la abuurayo asxaabtaada iyo waxba la isku yeerayo barnaamij baa la abuuraa marka ama dibi qal ama hawl kala qal ama habiibka niilka aad ama sharci kala sameey laakiin dad farxadda adigu dad maadaama xasan ku jirno macallin sadii aan ka dhax gal raalli haw maanta waxaan ku jirnaa maalin farxadeed maalin ciideed waa maalin koobaad oo ciida maalin farxadeed waay dabcan muslimiinta dhammaan tahniyad ayaa la isku dirayaa marka farxadda see lagu abuuri karaa inoo sheeg wallahi marka ayna jirin qofba si u garanaya farxad abuurista waxay ku xiran tahay bi'ada aad joogto imkaaniyaadka aad haysato asxaabta aad leedahay wax dhan way ku saacidayaan waa gartay qofku markuu wadanku cusub yahay qofna uu garanaynin oo adag tahay inuu farxad abuuro asagu waxa laga yaabaa inay mushkiladba ku noqotaba sidoo noloshiisa caadiga u maareyn lahayo cid qofba ma garanayo oo la hadlo laakiin markaad bariga waqti joogto ood ku raagto asxaab badan baad baranaysaa wadanka dhan laga yaabaa dadka jooga inaad taqaano xataa Suudaanta laftigooda is garanaysaan meelo badan baa ku furan adiga inaad qabato kulli marka anigu ka shakhsi ahaan waqti badan baa joogay wadanka 6 sano iyo 9 bilood taqriiban 7 sano dhow marka inta badan ardayda joogta intoodii hore waan garanayaa marka waxa laga yaabaa inaan asxaabta isugu wada ballanno aan xaafadaha qaar ku kulano iska sheekaysano kadib kaniilka iska aadno mashaariicdu iska badan yihiin okay waa mahadsantahay kulligiin waa mahadsantihiin Cabdullaahi iyo Xasan mar kale waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena salaamaha ciida iyo Africa TV 4 mar kale barnaamijkeena haya Cabdulle maxaa maanta dareemaysaa oo ciida oo aan ku jirno maalinkii koowaad ciida shakhsiyan maxaa dareemaysaa inkastoo noo sheegtay in adxiya maanta inay jirin iyo hirib qal horta farxad wax weyn waa shay weyn oo dee macnaha shacairta islaamka oo waxa weeye muslimiintu waxay leeyihiin 3 ciidood bay leeyihiin macnaha weeygi marka laga soo baxo yani jimcaha waa inoo ciid weeyaan waa farxadii weeygi lagu soo xidhayo tan jimco la isku imanayo khudbadii la geliyo la isku wacdiyo haddaba markaynu bisha Ramadaan ay soono aynu dhamaystirano waa tan ciid galnayno ciid al-fidriga galno tan ma tagana waa ciid al-adha weeyaan markaas la guud ahaan qofku shucuuriyan oo waajib horta inuu farxaba maadaama waxa weeye maanta carafo la taagan yahay oo ayaami khayrka aynu ku jirno oo ay ciid tahay ciidna waxa weeye shay lagu farxo weeyaan horta waanu wada faraxsanahay saxiix waxa weeyaan dhamaanteen qof wala muslim oo joogaba wadamada galbeedka waxa rag badan baa jooga oo jira rag fara badan baa jooga waa gartay dad badan dad fara badan oo Soomaaliya jooga dad islaam jooga dadkaasu
asna iyagu waxa laga yaabaa in waqti u helinayna seen maanta fasax waa sanoo haystaan oo shaqadii ku jiraan haddana asna way faraxsan yihiin oo waxa weeye farxi weyna la qayb qaadanayaan oo way farxi way dareemayaan marka aslan waxa weeyaan farxadda waa dareemaysaa waad faraxsan tahay asxaabtii baad u tagaysaa waxay la soo sheekaysanaysaa waxa weeye ehelkiiba ku soo wacay ehelkiiba wacaysaa waxa weeye dadkiiba macnaha weeyaan tawasul baa yeelanaysaan oo waa la wada xiriirsaan farxaddu aslan waxa weeye farxadda mar walba aslan waa dareemaysaa oo ciida wada taba ciidaas ka wadata marka qasab waxa weeyaan meel ka xidhnaato ama meel ayna ku furnaanin laakiin aslan dareen ahaan waa dareemaysaa farxadda waa ka qayb qaadanaysaa waynaga TV maanta fadhna farxadda daraadeed waynaga bartan isugu nimid xasan maanta waa maalin salaamo dadka way islaamaya anaga xataa TV fursad waxaan siinay inaad dadka salaantaan maanta yaad Soomaaliya ma la xiriirtay dadka Soomaaliyeed ma salaantay familiga qarabada Cabdilcasiis oo mid kooda laga bilaabo qofka salaada ka soo baxo fursadda koodu sameeyo waxa weeye inuu ehelka la xiriiro waqti badan ma saacad kulli anigu laba arrin baa isla way kaga duwan tahay ciidii hore aniga shakhsiyan de saxiix mid waa mid koodo adigu Cabdilcasiis oo yaraanteen isgaranayaan TV iskor fadhino aan xagga maartay ku salaamay heladii farxadda kooda iigu muhiimsan talabaadna waxaan doonayay iska ilaaway markii hore saaxiibkay waxa jira marna adeer u ahay yaraanteena soo karno saaxiibanahay waxa jirta isagoo laba farxadood ay maartay u kulantay ciidii iyo inuu guursaday marka waxaan jeclaa inaan si gaar ugu hambaliyo saaxiibkay Dr. Axmed Xasan Aadan marna saaxiib baan ahay gooniyo marna adeerkii baan ahay runtii si gaar ugu hambaliyo isaga iyo xaaskiisaba maartay Jamiila Saciid Cabdiraxmaan iyo Axmed Xasan Aadan waxaan leeyahay hambaliyo ciid wanaagsan farxad ciid wanaagsan waxaan leeyahay isku war uga qaar qaba kale insha sidoo kale taan wan leena insha Allah hambaliyo dirna ma sha Allah Abdul Tamir dan ku soo gudbo sheeka aan uga sheekeynay ma jirta galabta maadaama ku jirna maalin farxadeed oo ciida ama hees ciid ku saabsan noqaad ama gabi ku saabsan ciid noqaad ama wax kale adiga jecesha nooga sheekay ku soo dhaw sheeka lagu wala ciid iskaga jiro wala sheeko gadaadiyadu ku haysaa hal sheeka ba sheeka keenta marka dibadda joogno dabcan aad aan ugu sheekayda Soomaali bad balada waxa la halkan galabta ka sheekay hadii waxa laga yaabaa kulay markay lagu soo badal gudaha hees sheeka wax ka sheekay in hore soo boodin laakiin waxa igu yaa baray maanta maadaama ciid lagu jiro aslan sheekadan haweeney ciid ku fasaabsanaan baa wanaagsan naam hatta hadii ku ciidan ciid yani ciidul adha inta badan dadku markay in xoolaha la qato la qasho waxaad moodaa in ay noqotay iyadoo dad shayde sunno ah tahay sunno ma ka tahay haddana sidii dadku ay u sameeyaan waxaad moodaa xadkii lagu talagalay dhaafiyeen oo isku faan yaad moodaa haddii maanay kuwan ay qali waayaan xaafadan kala qaatay carruurta shucuurtooda kala ilaalinayo ma wadanka aad ka hadlayso Suudaan aslan caalam way ma jirtaa wadan duwal Carabiya marka waxa dhacday wadankan Morocco ayaa waxay ciidad xal yimid markii ciidad xal yimid maghrib العربي markii ciidii la yimid ayaa xaafadii ma haystaan awood fara badan oo xoolo ku soo iibsadaan bay nafka dhexda ku sameeysan lahayn ma haystaan inta badan waxa ka jirta wadankan Morocco waxa ka jirta asla shirkado tamwiil jira shirkado maanaan maalgeliye jira shirkadaha jira shirkadaas waxay ku sii amaahinayaan mar laakiin waxay ku saarayaan ribo ku saarayaan anaga kulli 460 oo dollar ay ku amaahinayaan mar dhow waxa saaran 1400 ya ribo saaran marka culimada markay islaanta dhigaysatay reerkii dhigaysteen awood buu yeelay waa inay iyagana taga ka soo qaataan udxiyadina carruurtoodii markay deeran kale ay haystaan in magaras ay carruurteena joogi kareen saarta shucuurtooda ilaaliyaan oo farxad u qaataan mar waxay sameeyeen guriga ku jireen in badan qurxinayeen qaybta kamid talaagada haday noqoto TV-ga haday noqoto qayb kamid ay xaraashaan si loo soo iibiyo adxiyadii loo soo iibiyo reerkii waslan gurigii waa laga faaruqiyo carruurtii gurigii ku noolaan qurux badan qayb kamid waa la iibiyo laakiin si carruurtan loo ilaaliyo wax weyn reerku farxad uga qayb qaataan waxa la keenay neefkiiba loo keenay sida neef ku qasheen gurigooda waa cidla qayb kamid ah waa dhibaato soo kordhay taasina ujeedadana waxa weeye in carruurta la qanciyo in carruurta lagu qanciyo de waxa weeye carruurta farxadoodu markay dibadda u baxaanayaan kan tagaan afar neef bartan lagu qolay qaybtana qasheen ay guriga soo noqday gurigoona cid leeyahay ma carruurta ma yeelayeen in loo soo iibiyo kiilooyo ma garanaysaa loo soo iibiyo hilib loo soo iibiyo oo guriga lagu sameeyo talaftoos carruurta ma yar dareemayaan shucuur ahaan bay dareemayaan hadda waxa noqotay xaafadii inay u iibiso alaabtii u iibiso kadibna ay u keento وماسنت عبد الله هي حسن شيكان وش شيكين مجرتا ومالما عيد أو كلا قيب قاعدين نسيد أرتا عبد العزيز هو هاوي قف البمرك وحكي شيكيني وحولي هاوي نعم لازم سمرو كشيكيا أوكي waxaa dhacday anigu gobolka jooga jaamacadaha gobolka dhiga jirnay Suudaan wadanka Suudaan ba inteena badanna marka maanan u badnayn dad maartay hore wax u karin jiray ama yaqaan sida maartay noloshooda loo maareeyo waxaan dad hooyadood iyo aabood ku soo akrayo
hal mar ka soo dhex baxay waa gartay marka waxaan xasuustaa marka ciiddii saddexaad bay ahaydoo dad yar baa lagu yiri niyow soo tukanay lagu yiri niyow shaah soo kari inta maaragtay laga gaarayo neefka inta la qalay iyo howlaha waa ciid adxiyaad heseen waa gartay marka de marka la leeyahay soo karina nin ku dhaamo asaga ma jiro isku mid baa la wadayaa waa gartay laakiin de waxaa la doonayaa maadaama meesha la wada joogo qof kale noo maqan uu jirino waa in qof la diraa mar nacam marka yar hadda waxaa jiray marka lagu yiri soo kari waa gartay marka isna mu oran de qaabka loo kariyaa qof muus istifsaar weydiina uu iska dhaqaaqayo dabkii buu aad indhaga fudud ahay indhaga fudud ahaa anigu saa usugaynan buu hal mar soo dhigay shaaha moogta haye marka waxa cajabiyay waxay ahayd qaabka u kariyay waa gartay wuxuu sameeyay waa tay marka shaaha inta biyaha la kululeeyo kadib lagu daro sonkorta wixii haday buharaad leeyihiin kadib caleenta lagu daro nacam caleenta buu ka bilaabay waa gartay marka shaahi caleenta ku daro soo sonkortiina sida shaahi caleen la wado noo keena waa gartay marka waxaa la yaabay waxay ahayd dadka maaragtay dhalinyarta Soomaaliya ka soo baxaya inta badan ayadoo la barin maaragtay khibrad badan lahayn maaragtay xagga oo gabdhaha u adeegaan baa la soo diraa moogta marka saadhow dibadda dhibaato ku qabsata marka maxaa ku talin doctor marka waxaan ku talin lahaa anigu shakhsiyan dadka kamid ahay waxyaalo badan baa igu dhacda aan ka sheekeynin waa gartay marka waxaan ku talin lahaa in hooyooyinka Soomaaliyeed iyo walaalaha Soomaaliyeed gabdhahuba ay wiilasha fursad u siiyaan inkastoo wiilasha laftigoodu bay daysan iska yihiin maaragtay hawsha ay aad u jecleen haddana qofka in la baro noloshiisa hadduu keligii noqdo ula jaan qaado hadduu keligii noqdo inuu noloshiisa maareyn karo waa sax marka taaba ama jaamacad u baxo ama shaqo u baxo in hadhow shaqadii wixii nolosha ay qabsanaysa asaga oo noqdo qof noloshiisa socodsiin karo maaragtay maalin yom qora iska istaagin marka waxaan jeclaan lahaa in qofka la baro jikada iyo waxa ku jira sida wax loo kariyo hal qaxto qofku shaah karsan karo wax kale iska wadaay sabab ku talin lahaa waxaan noo ogolaanay mal maranayaa wadciga ku noolay mal ma yara yani noo ogolaanayno marka inay kijadii galay ka daba gasho hooyada ka daba gasho meelta ka daba gasho waxaan naga baxbaa laga kijad waxa ku dhex dhigay hadda waxa jamir soo sheegay waxay qabsanaysaa dibadda markuu tago maarto tago dhibaato la kulmay asla wadii marka tagna inta badan waa dharkii waa lagu meedhaya waxa weeyaan guriga waa lagu hagaajinaya dharkii waxa cuntada waa lagu karinaya wax walba waa lagu qabanaya sax marka dibadda soo baxdo ee dibadda timaado wixii wada ku soo baxsanaya kulli ku soo baxaya ku soo baxsanaya wax horna ma aqoon inaad aqoon wax keenay ana ku duulay taas hadii champion ka dhex galo waxaan noo sheegtay inaad timid 2009 Suudaan bal nooshaada say ahayd xilligaas iyo maanta say tahay bal waxaad noo sheegtay hadda soo xasan sheegay Dr. Xasan in noloshu qofka loo baahan inuu la qabsado wixii wadankii lagu qaban jiray in maanta halkan ku qabsanayo oo wax karinayo oo wax dhaqanayo wax kasta u sameeynayo jaamacaddii hadafka u yimid oo sameeynayo laga rabo maxaa caqabadkaas u wajahay maxaa kamid ah marka ugu muhiimsanaa horta kulli haween marka timid deebaad ku timid wadanka waa gartay sidaa isku bedelayso ay noloshaadina isku bedelaysaa waa gartay markaan imid bartan aan imid waxyaabo fara badan horta aan aqoonin yaa iga hor yimid markiiba waa gartay markii hore waxaan ahaa dee nin la nool ehelkiisa la nool baan ahaa oo dadkii families la nool baan ahaa oo nolosha qaybo ka mid oo laga qaban jiray kuma soo fakan jirin waxa laga yaabaa intaad iskuulka tagto markaad iskuulka tagto soo dhigato aad soo noqoto buugta meel baad saa u dhigaysaa bas adigoo akhris iyo wax laga rabaa waxbarasho ma laga rabaa laakiin nolosha maarintiisa koo dhan xaafada gacanta ku haysa hadday noqoto cuntada hadday noqoto inay noqoto cuntada hadday noqoto markii la meedhiyay hadday noqoto ama la dhaqayay hadday noqoto hadday noqoto ma garanaysaa dee nidaamkii kale ee noloshaada hadday noqoto gurigii nadaafadiisa hadday noqoto dad la wada deganta kala duwan oo dad kala wada dabeecad duwan iskugu imanaysaan waxaa soo arsadaa maareynaya hadda gabdhaha Soomaaliyeed waad baxaysaa jaamacadda baad qabanaysaa jaamacadda marka soo joogtid ka timaadid waxa laga yaabaa guriga caawa inaad la waranayo guri baa loo nool yahay waxaad u kari adaa ku qoran caawada ku qoran hadda jaamacadda ka timid dad soo istaagtay adaa ku qoran waxa lagu waranayaa maryaha laga yaabaa bari waxaad ku tagi lahayd inaad hadda maydha laga rabaa inaad madana marka ka laga rabaa waxa laga rabaa haddana in magaranaysaa ama gurigi maanta lagu leeyahay adiga maydh baa laga yaabaa shaqada doorka jadwalka ana waxay noqonaysaa noloshii oo dhan qayb laga qaban jiray inay ku soo wada fakatay noqonaysaa marka raggii waxa weeyaan in habla la dhalan oo berigi hore la dhalan oo reerkooda la noolaa kale waxa laga yaabaa ragga inta badan ka tababara ninka waxa weeye markii hore ayna hablahooda badan ay la joogeen amba waxa weeyaan hablaha ka wada yaryaraayeen oo dhan ee hore ugu soo baxsan jireen markuu bartii yimaado saa ka toora halkan ma isaga wax ku sheegay war sidaan rag baa waxa ay noqotaa in la tababaro dee waxa weeye loo bilood rag baa shaah loo diray rag baa la yidhi shaah soo kariya sidii Dr. Xasan sheegay kale rag baa shaah loo diray shaah soo kariya baa lagu yidhi marka waxa jirta wadankan Suudaan laba magac aad isku dhow laban budra iyo laba magac isku dhow jira laban budra iyo saban budra jira waa gartay yani waxa weeyaan waa caana boodha baan caana darayga oo qalan caana boodhi caana boodhi weeyaan naam midna waxa weeyaan waa tayd amba waa saabuun loo yaqaan ama tayd weeyaan waa gartay dadana uu baxay waa gartay markuu tagay
ayaa wuxuu siri laban butra dheh waa markii wuxuu la soo booday saaban butra biro soo qaatay marka way isku egyihiin waxaan dad aad ku sii fiirsan way isku egyihiin waa uu yimid marka markuu shaahi karaya sokorta ku dari buu dabada caanina ku dar intuu ku daro ham ku siiyay marka isku laftiisu de waxa way wadankan kuwal fara badan baa jiro oo marba stress kugu furan yihiin qof marba stress kugu furan waxan ba arkayn ba waa hab buu ku siiyo dad karanaysa biyo kulul oo saabun lagu daray waa bug buu isla yiri dabaween kajeer buu ku jiray ama madbax ku jiray isagii waxa soo wada booqay qabar wada yaacaya isagii laftiisu naxay waxaan dhacay waa caymis isagii laftiisu dabadii soo booday naba ku yaacay ka qabteen war maxaa dhacay oo suud war waxaan maxay yihiin waa budro diyaasla markii qaar wax kamid ah luqada noqon kartaa in qofku laftiisu soo la qabso wadanka isagoo la qabsan wadankiisa ha wada badan ma jira waa ma santahay doctor hadda waxa laga sheekeeyay saaksan tahay ama adiga waa ka sheekeeyay Ustaad Cabdullaahi ka sheekeeyay caqabadaha soo wajahda qofka markuu wadanka yimaado gaar ahaan wadanka markuu yimaado haddaba maxaa ku taliyeed kow horta waxaa aniga muhiim ah inaan tahniyad guud gaarsiinaan gabdhaha Soomaaliyeed maadaama marka aad ka cabateen nolosha adeegeedii ama aan ka cabarin kulligeennaba talabaad talaw inaad bixideen ama iska muuqata ahayd in gabdhaha waaridku ay balance sameeyaan caruurtii iyo maaragtay wiilashii iyo gabdhihii balance loo sameeyo shaqadii guriga iyo shaqadii nadaafadii wixii ay ka wada qayb qaataan si hadhowta biri ay noloshii u maareeyaan okay intaasoo dhan adoo marka anagoo aragnaa ama u jeedna dhibaatadiina ay soo waajiyay qofka marka halkan yimaado si guud tala u bixida marka hore laakiin talada aad gabdhaha siinaysaan ama aad tahniyada gabdhaha siinaysaan si guud maxay tahay galabta horta Cabdilcasiis oo gabdhahan aad u mahadsan yihiin waa gartay khaasatan de waa iska dhaqan Soomaalidu leedahay oo in wiilka lagu arko kitchenka asagoo jooga hagay ay agtooda ceeb bay la tahay waa gartay laakiin qofkii ama sumcadeedii shakhsiyadeedii waxay isleedahay de wiilka kula dhashay ama yarta saaxiibada haduu banaan ku arko asagoo gacmaha ooma ku leh ama mataqaana qic ka soo karayo ayadu waa la ceebday hadhow waa la leeyahay walaalkeed jikada gala waxaan u caabay malaha ka carreeya de anigu dhacday walaashay imika ima ogolaan jirin inaan jikada tago iyo meelaha mataqaana kitchenka dhow yahay waa gartay waana iska dhaqan Soomaaliyeed oo soo jirena waa gartay laakiin de qofka waxaan ku taliyay horta dhalinyarada la baro de noloshiisa qaabka u socodsiin karo inuu mataqaana waxaan kala qabsan karo si dhibaato is kala kulmin waa talada koowaad talabaadna waxa weeye qofka dhalinyarta laftooda wiilasha laftooda inay isu xil iska saaraan waxa inay bartaan inay oo mustaqbalkooda si ku maari lahaayeen biri ka maalin markay ay jaamacad aadaan ama ay dibadda aadaan dalka dibadda u baxaan in dhaqankan uu soo oolin dalka exactly marka qofka markuu dibadda u baxana wixii dhan ba ku soo furmay sidaas jambeer ka sheekeynayay nolosha dhan ba ku adkaanaysa waxa laga yaabaa marka in stress ku furmaba dadka qaar ba mataqaantii isku dhaxyacaan jaamacadda wadi waayaan stress ku furma dib loo celiya waxaana waxa laga yaabaa in stresska badan iyo duquudaadka qofka soo koriya inay kamid tahay waxyaalaha qofka maartay stress ku furay marka wiilasha laftigoodana tayeen mataqaana meesha waa laga celinaya dhaqana jiraysa ku hakan inay isku dayaan waxa kan inay barto wax waa cilmi dad baa jaamacad uga baxay sida wax loo kariyo madaacimta iyo fanaadiqda in loo galo kasoo barnaamij ciid yahay oo farxad iyo waxa laga sheekeeyo laakiin hadii wiilasha laftigooda farxadooda ku daraan qaabta maartay uga faa'iideysan lahayn fursada culeyska dadka qaar ku dhacay ay ku dhaceen waa maasan tahay Dr. Xasan aad waa maasan tahay Ustaad Cabdullaahi maxaa kugu farxad badnaa adduunka inta joogtay waxaan joognaa maanta maalin farxadeen ka hadlaynaa maalin ciideedaan ka hadlaynaa waa maalin salaamaha la isku gudbinaayay maxaa ku farxad badnaa adduunka inta joogtay xusuustaada horta waxay ku farxad badnaa intaan horta Suudaan joogay hadaan yiraahdo walad iska dheer tahay oo la noqon karo horta waxay ku farxad badnayd hadafkan Suudaan iyo maanta maalintan gaadhay ma sha Allah oo ahayd markii koobaad aan ka khariijay jaamacadda digriga dhameeyay waa gartay maalintii waxay aad horta farxad aad u weyn bay ahayd oo intaan deynta soo wadana soo socday aan safarka dheer soo galay in horta jaamacaddii dhameeyay haddana darajadii labaad aan masterta aan guulka gaadho yani iga dhamaystirteedana waxaa loo farxad horta aad u weyn bay ahaayeen markii haddii aan ka dhex galo Cabdullaahi Ustaad Cabdullaahi waxaa dhamaysay degree waxaa dhamaysay master hadda laba shahaado ayaad gacanta ku haystaa farxad waa farxad dabcan laakiin markii jaamacadda aad heshay waran awal marna jaamacad wax leeyahay ku soo baxday farxadda dareemis wallahi horta markii aan horta dhameeyay dugsiga sare Xamdaan bin Rashid maran ka baxay Hargeysa ku yaala maran ka baxay aniga horta iska fadhiyo shaqadeydaya oo niyada ku haynin aan iskuulkii dhameeyay yani shaqa raadisa masjid la yiraahdo huda dhex fadhiya waxa la soo hadlay inaan bartan ka baxay oo saaxiibanahay inaan bartan la joogan maray Mukhtaar Cabdi Nuur ayaa la soo hadlay maxamed sharar la soo hadlay Mukhtaar dib iga sheegay
anoo iska fadhiya Axmed Sulub maxamed axmed sulub haa Hmm. maxaan shareero Si fiican ayaa la soo u hadlay anigoo dhex fadhiya masaajidka goor duhur ahayd meel shaqaan soo eegay waa gartay dabeetana anigoo shaqadii wixii ay isku soo haagi weyday Ha, oo iska cibaadaysan iska fadhiya oo safka hore iska fadhiya waa gartay telefoon baa igu soo dhacay waan Waa qabtay wuxuu igu yidhi waxaad heshay jaamacad waddanka suudaana maasha allah maasha allah aad baan ugu farxay laakiin anu markaa miyaan dabadda yimaado niyadu ma hayn markaa waa gartay niyad macnaha numaan hayn markaas Ha, wadda ka nimaado farxad macnahan farxad aad usii weyn ma fi igumaysan hayn Waa laakiin alxamdulillah markii dambe haddana waan jaamacad soo baxday waxay noqotay in qasab imaado waa gartay laakiin waxa kasii farxad weyneyd markii aan yani ku guulaystay magaranaysa dhammaystiray jaamacadihii aywa labadii qaybood aan dhammaystiray weliba dee si degdeg oo waqti u dhexaynin waqti u dhexaynin waqti u waqti dhexaynin ka qasaarinba oon waqti laga khasaarin Ha. inay ku dhammaystirmado dee horta farxad aad u weyn bay ahayd runtaa waay aad shay lagu waa farxay maasan tahay sidoo kale doctor xasan aan usoo gudbiyaa doctor xasan maxaa kugu farxad maalinkee kugu farxad badneed ama waqtigee kugu farxad badneed ama dalkii markaad joogta noqoto ama suudaan intaad joogta noqoto horta cabdilcasiis aniga waxaa markasta igu farxad badan markaan aan hooyadii la kulmo allahu akbar Waa markii ugu maasha farxadda Allah badan waxaad aad nolosha. runtii ayo aniga iyo hooyadii waqti badan maan wada qaadan inta badan maasha Allah inta badan iyadu xogaa dadka qofku markuu gobolada ku karo caasimadda way yara waa dhibsada dareemi karaa runtii caasimadda ma jecla marka aniguna xagga muqdishoan joogay hooyana matbaan bay joogtay marka Waa gartay. waxay noqonaysaa dabcan marka kale kaga farxad badnaanaysaa Aad iyo kul aad. markastaad aragto aad iyo aad dee hooyada ah maasha haddana Allah markasta arkayn markaad aragto farxad gooniya leedahay akiid farxadda labaadna waxay ahayd igu muhiimsaneed dhowr maraaxil baa jirtay ha markaan secondary ka baxay xogaa waxay ila ahayd farxad qof weyn maaragtay wax weyn baa isla ahayo Inaad, secondary ka baxay ka xogaa gudubto qariib bay ila marxalad, ahayd ha isla sidaa laga mid xogaa waxa maskaxdeeda ku jiray jaamacad ma ka bixi kartaa xogaa su-aal isweydiin jiray oo wax adag baan moodayay waa gartay marka la igu yiri weliba jaamacad aad u adag oo dadka wada garanayaan waa gartay gobolada gobolka ku taala jaamacadda Imaam Mahdi la yiraahdo ha maalintan ka takharujana weliba Soomaaliga labaad oo kuliyadda ka baxa aan ahay maasha Allah waxay xogaa ila ahayd qariib oo noocan ma inaan takharuj xataa aan takhayuli waay mararka qaar waa gartay iminkan master baan wadayo iminka hadda gabagaba ku dhow maasha Allah marka saas bay farxado isugu xigaan farxado isku xigxig hadda ku ka balaaran oo sugayna insha Allah maasha Allah waa maasantiin labadiina waa maasantiin runtii waa farxad aad u waaweyn waana waxaan rajeynayaa farxado kale oo ka waaweyn inaad gaari doontaan insha allahu tacaala adinkoo mustaqbalka hogaano ah iyo meelo waaweyn maaragtay Insha Allah, dhammaanteen. waxaan rajeynayaa asna waa doctor adna waxaad ustaad maxaasabaad ka baxday doctorkana waa mukhtabaraad dhigtaan rajeynaya waa mahadsantihiin guud ahaan ma jiraan ustaad cabdullaahi si gaar ah qof aad u jeceshahay maanta si aad salaamaysid hadduu yahay qof aad relation gaar ka dhexeeyaan hadduu yahay qof kale tafadal يعني markay horta waa asla markaad la yiraahdo horta yaad jeceshahay markaad jecel horta jecel waajib baa jiro jecelkii dee waalidkay weeyaan inagu waajib hadda ka waa salaanta waalidkii waa Kaa waa salaanta si salaanta. gaar ah maanta qof si gaar ayaad salaami lahayd naam si gaar ayaad salaami lahayd waxaan noqosaa yala malaha adka saba waxaan noqosaa maxamed warbaahinta cabdullaahi ku adkaatay xoogaa. warbaahinta inaan mariyo malaha ma waa caadi no problem inaad Dee maanta qof si asxaabteeda gaar hadday ah noqoto xagga dhalinyarada iyo namada hadday noqoto Aha, raggan aad saaxiibna way jiraan oo inaan saaxiibnay cabdilaahi maxamed axmed madar waa gartay waan salaamayaa naam waxaan salaamayaa oo kale cali yuusuf kaahin oo kale waan salaamayaa waa maanta ustaad cabdullaahi waxaa dhamaysay digriyaa dhamaysay waxaa dhamaysay masteraa dhamaysay waxaan rajeynaa kulley shaqo iyo process yaa ka fikiraya dalka inaa aadid kulley inaa guursadaa ka fikiraya inaad guursan ay sheegtay صح qof aa relationship leedahay xataa waa salaam kartaa ma fi maanic ما في مانع صار way jirtaa haddaan salaamo kuwa qiimeeyno dhimane waxaan salaamo isla dadaan iska walaalnahay waan salaami karaa waaltana naga dhaxayso waan salaami karaa si walaalahay oo kale waan salaami karaa dee shukri walaashay oo shukri jaambir kale waan salaami ma karaa sha Allah Zainab jaambir walaashay waan Waa salaamaya mahadsantahay. waxaan salaamaya kale nuura meexo kale oo idadii kale waan ma sha salaamaya Allah waa family qaali aad agtaaka family salaamaya intii kale dee ay dhalinyarada walaaltinimada iyo naga dhaxayaan relationship naga dhaxayaan bade la naga dhaxayana igu islaamihiin waa mahadsantahay doctor doctor xasan sidoo kale yaa salaami maanta si gaar ah qofku ugu weyn ma jiraa waalidku waa salaantay family dhammaan waa salaantay si guud oo kamana u salaantay hadda si special yaa u salaamaysaa fursad qofaasina ma jiraa mar labaad baan ku celinayaa hayo hooyadii baan ka bilaabaya marka labaad allahu akbar hooyadii asal nuuriye waxaan doonayaa inaan dad noloshayda maaragtay asaaskeeda gacan weyn ka geystay oo saaka inaan noqdo nin weyn oo lagu xisaabtamayo oo mataqaanaa noqday qof isbixin kara ka shaqeeyey baan aad u salaamayaa adeerkii maxamed deeriye ma sha Allah nin adeerkii xasan aadan deeriye waa gartay iyo walaalkii ilash cabdi maxamuud deeriye saddexdaa Ma sha qof Allah. oo Waxaan saddexda rajeynaa qof oo inay noloshayda daawanayaan. fikriyan iyo maadiyanba iyo macnawiyanba
gacanta ku hayay ihagayay ilaa aan ka soo gaar heerkan saddexda aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa saaxiibkay khaaska Axmed Xasan Aadan marna adeerkiis ahay waxaan salaamayaa asxaabta badan reer Suudaan wada nahay Axmed Sheeni oo ku celinaya mar labaad waxaan salaamayaa saaxiibkii Mustafa waxaan salaamayaa way farbadin asxaabtu marka waxaad iga filaysaa inaan qolada ma taqaan xagga kale u leexdo waxa jira asxaab kale aad isugu weynaa sidoo kale iga mudan inaan ma taqaanaa xilli walba salaamo xabsa xasan yaraa kamida waxa kamida walaashay Naciima ma sha Allah waxa kamida walaashay Nasra Xasan Xuseen waxa kamida walaashay Nafsa Xaashi marka waxa laga yaabaa saadayta u afeefanayo kale inaad dad badan oo aad kugu qaaliya ka mudnaay ma taqaanaa inaad laxdo walba salaanto inaad sudfa ku ilaawdo macnaheedu ma ku daray salaantiina shaqaale Africa TV maan ku daray salaantiina marka macnaheedu ma inaan ilaawnay laakiin waxa laga yaabaa sudfa marka adiga Cabdicasiis Caabiya oo yaraanteen isgaranayna si fiican ku salaamaya shaqaalaha ma taqaanaa TV telefishinka maamulka waxa dhan aad u salaamaya cid wanaagsan oo ma santiin guud ahaan aad ma santiin barnaamijkeena waxa weeye gabagaba ayuu sii yahay haddii aan markale u soo noqono barnaamijkeena salaamaha waxaan rajeynaynaa daawadaasheen inay si toos ah wala socdaan Africa TV soo kale nambarada shaashada ka soo muuqda inay si toos ah u soo xiriir doonaan si ay familigooda ula xiriiraan oo salaamaha ay ula wadaagaan wana la soo xiriir karaan Abdullah Jambir oo midkeeda xiga Abdullah ku soo dhaw markale barnaamijkeena waxaan ku jirnaa barnaamijka salaamaha ee Africa TV maalinka ciida ee koobaad haddaba Ustaad Abdullah waxaa wadanka tahay saad noo sheegtay gabagabo waa ciidii dhowr iyo tobnaad wadankan markaad aad joogtid jaamacadii waa dhamaysay si gaar ah marka waxaan rajeynaynaa safar dalka u tahay maxaa maalmaha yarka kugu haray Suudaan maxaa dareemaysaa Ustaad Abdullah inta igu hadhay imka Suudaan waxaan maranayaa waxaan ka baxaya insha Allah say qorshahayga aan ugu talagalay inaan kaga baxo bisha soo socota insha Allah bisha 10 ha waa gartay soo qorshahaygu yahay inaan kaga baxo Suudaan waa gartay wad garanaysaa qof baxaya safar inuu ku jiro niyadan ka safarhay maslan oo Suudaan waan joogaa laakiin niyadan ka safarhay waxaan ku jiraa si qorshe aan uga bixi lahaa Suudaan maadaama ka sii baxayo in badan aan joogo waxay noqonaysaa inaad ka sii garanaysaa ka sii alaab garato ka saxam garato noqonaysaa hadday noqoto buugtii maadaama arday ka ahaa inaad hadday noqoto maadaama waxa uu joogo ardaynimo ahaa hadday buugtii noqoto maraajicda hadday noqoto referensiga hadday noqoto magarata shahaadooyinkii ka magaranaysaa inaad soo wadato hadday noqoto ijraa'aadkii kale ama processkii kale ku bixi lahayd oo dhan inaad ku jirto inaad xaafadii ogeysay noqonaysaa inaad soo baxayso kale inaad dad fara badan oo xaqaad shaqo ka heli ama aad la soo xidhay noqonaysaa asxaab fara badan isku qaali tihiin oo macnaha ku qaali laftooda oo Suudaan kula jooga iyo kugu murugay noqonaysaa laftooda ka tagto wax noqonaysaa iyagana waqti badan la qaatay noqonaysaa yani waxa weeye waqti yani kala guur loo oran karo inaad Suudaan in badan joogay ma garanaysaa oo 9 sano wax ku dhow 6 sano aan joogay asxaabtaan baranay iyo macallimiinteedii iyo jaamacad dadkii oo dhan ka tagayo wadana in badan ka soo maqnaana aan ku noqonayo waxa weeyaan waa waqti ma garanaysaa iskale isagu iskale adeegis iskale waa maasanta Ustaad Abdullah Jambir aad ma maasanta Dr. Xasan ma jiraan waxa aad xiisaydo ama aad jeceshahay waayo qof kasta wuxuu jecel yahay ma xiisaya mugti inta badan maxaa jeceshahay anaga barnaamijkeena galabta maan u talagalay mowduuc adag oo bulshada ku adag ama waxaan u talagalnay salaamo barnaamij furan qofka aan weydii karna wax kasta iska fudud marka wax dhib ah oo arkaynayna anaga marka waxa way saas horena inii socodsiin marka wax maxaad xiisaydaa maxaa jeceshahay inta badan xiisaydaa wax uu xiiseeyaa Ata Cabdilcasiis oo qofba moogtay wuxuu yaraantiisi soo sameyn jiray waxyaalaha kamid buu jecel yahay waa gartay waxaan maleynaa yaraanteedii maartay alcaab badan baan soo ciyaar jiray waxaan jeclaa jiray kubadda inta anagu yani wax kale malihi baan qabtaba waa gartay jaamacadda iyo waxa ka soo haro kubad baan iriyaa waa gartay marka horta waxa uu koowadan xiiseeyo waxa weeye ama kubadda waa gartay inaad ciyaaristeeda ama daawashadeeda labadaba waa gartay waxa xigana waxa weeye moogta markaad majaal dhex gasho aad ku fogaato waxaad wuxuu kamid noqonaya waxaad xiisaydo ayaga waa si gooniya meeshaad ku aragto oo istaagaysayo muqaam gooniya kula leeyihiin waa gartay marka kutubadan cilmiga dabbiga la xiriira muxtawaraadka majaalkaygana ayaad badanaa kaasna waa waxaan aad u jecelahayo meeshaan ku arko waan istaagayo laan waxaan wax ka garanaya moogta saxiix marka intaa waxa xiga waxa weeye asxaabtaydan markaan fursad helo waqti la qaadato waqti la qaato aad u jecelahay la sheekaysto aan fursad wada qaadano laana khibrad baad ka helaysaa waxaan adiga kugu jirin mid maarta hatta shaqada caadi waxba kaga soo baxaya qofka markaad la sheekaysto marka intaa wax xiiseeya waa maasanta maxaa xiiseeyaa Ustaad Abdullah marka la daadiga ku soo noqdo maxaa xiiseeyaa inta badan أنا ورد واحد أقول شعر هذا النقطة مركز لقيت تجو كتبته ونخريها لقيت تجو كهران كتبته وحنا أقول شعر قيبت قصص كأي تاريخ أنا أقول شعر ما شاء الله يشوف فيها أنت سمعت أقول شعر وان شعلان ما أنت هلا كسر إنه تورتي ده سؤال قالوا كنت نسمع أنا هو وحنا تعيش هاي أكمل كلا آخر سنتين نقطة كتبتها تاريخ ذا كلا نعم هذين نقطة قصص كلا هذين نقطة
وهذه نقطة كله معناها جغرافيا وكله واقر أحيانا أدو حسيو يا كم ذا واقر waxaan jeclaa berigi hore inaan bartoon aad u jeclaa ahayd badaha oo kale horta aslan iyo dabaasha aad u jeclaa iyada dabaasha aad u fiican shayga dabaasha la yiraahdo واقر وانا ku mid riyaada ninka wax jecel kubadda ha aslan shayga dabaasha la yiraahdo واقر ayaan ku jeclaayo berigi hore dabaashan waxaan ahaa bartan ka soo jeeday macmartan degi jirnay waxaan ahaa laba qof baa igu horeeyay dabaashan aad waqtigan naga dhamaaday hal second laba second ku siinayna dabaashan horta aad u jeclaa gabagabadii ku soo gabagabay horta aad baan ku mahadnaqayaa mar labaad TV-gan barnaamijkan aad noo qabateen fursadda noo siiseen aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa adigoo ka qadimo mar labaad waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay fursaddaad na siisay guntii gabagabadii waxaan doonaya bartan ka salaamo dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan dad gaar ahaan dadka Soomaalida inta luqadda Soomaalida ku hadasha gaar ahaan waxaan jecelahay inaan sii gudbo aan ka soo jeedo Somaliland inaan salaamo madaxweynaha dhammaan jibirta Somaliland aan salaamo golayaasha kala duwan noqoto fiidka haday noqoto qolada haday noqoto fulinta haday noqoto qolada sharci dejinta iyo qolada maxkamadda iyo dhammaan ehelkayga gaar ahaan eedaday iyo hooyaday wanaag jecelahay in aad iyo sanad eedaday Caasha Saahid iyo hooyaday Raxma Cabdi Axmed Gude aad Cabdullaahi Jamil Muxsan taal hal second laba second ku siinayna yaad salaamaysa ama ku soo gabagabeynaysa waxaan aad ugu mahad celinayaa TV-ga African TV oo fursad inoo siiyay inaan kaga qayb qaadano barnaamij salaamaha iyadoo ku dhawaad 5,000 arday joogaan taas si gooni ugu mahad celinaya TV-ga adiga Cabdicasiis Nuur Caabiya maamulka iyo shaqaalaha intaba dhammaan ummadda muslimiinta Soomaaliyeed salaamaya ciid wanaagsan baan leeyahay ummadda Soomaaliyeed si khaas waxaan salaamayaa reematabaan meeshan ku dhashay waa gartay aad ma santiin maanta daawadayaal barnaamijkeeni halkaas ayuu ku egyahay waxa igala qayb qaadanaya Cabdullaahi Jambiir Saahid iyo sidoo kale Xasan Diiriye Maxamuud ama Xasan Maxamuud Diiriye anigu Cabdicasiis Nuur Caabiya ayaan la socodsiinayay intaan barnaamijkan kale dib ugu kulmi doono waxaan ka tagaynaa sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر